magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa laga hadalhayaa doorashooyinka madaxtinimo ee Somaliland oo maanta loo dareeray bulshada caasimadda ayaa qaar badan oo kamid ah waxa ay muujinayaan in reer Somaliland ay gaareen guul ku daysho mudan wallahi wixii gaaray horta horumar aad u weyn ay gaareen horumarkan hadda ay joogaan ma ahan mid hadda ay isgaarsiiyeen mid hadda ay tahay la joogta ma aha waa mid ay isgaarsiiyeen waa marxalado far badan ay soo mareen marka waxaan dhihi karaa Somaliland sidoo kale horumaraad gaarteen guulaad gaarteen runtii ummadda walaaleen Somaliland aad baan ugu faraxsanahay maadaama heerka maanta ay taagiin waa heer ku dayasho mudan doorashada Somaliland horta waxa way doorasho aan caadi ahayn inaba barnaamij aan dadka Afrika aan wali lagu arkan ay maanta sameynayaan waana dalku dayasho mudan horumarka iyo nabadda ay gaareen waan u hambalyeynaa anagana waxaan rajaynaynaa midaas iyo mid ka sii wanaagsan in aan anagana gaarno waa dal ku dayasho mudan kulay waxaa jira shakhsiyaad badan oo ka soo jeeda Somaliland oo jooga Muqdisho kuwaas oo aan ka mid ahayn dadka maanta codkooda dhiibanaya wallahi aad iyo aad bay fiican tahay doorashada maanta ka dhacaysa Somaliland waa arrin aad lagu diirsado waayo waa arrin horumar iyo waxyaabo badan soo kordhisay Somaliland anuu maanta ma codeynaysa laakiin aad baan uga xumaynaa inaan maanta codeyn waayo sababtoo ah waqtigaani saamaxin laakiin insha Allah waan hambalyeynaya kun jeer hambalyaan leeyay ilaahay nabadgelyaha ku dhameeyo khayr baan dirjinaya bashooshii barwaaqo wallahi deer doorashooyin kale waan ka qayb galay laakiin tan nasiib ma yeelan ka qayb galo laakiin waa jeclaan lahaa haddaan maan joog lahayn ka qayb gali lahaa laakiin waqtiga ay saamixi waayay daran ha wallahi aad bii saamaysay insha Allah hadda saacina tartamaya oo saacina Somaliland soo jeeda anu kii guulaysto waan hambalyeynaya doorashada Somaliland ee maanta loo dareeray oo ah tii shanaad ayaa xildhibaanada qaar ee ku jira golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ku talinayaan in wax laga barto qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa iyana ka hadlaya doorashooyinka Somaliland wax badan bay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay marka doodii dhageystay wataan joogay doorashooyinkii hore markaan arkay sida nidaam kale ee saaka 7 baan u kacay idaacadaha iyo TV-ga waan ka eegay nidaamka iyo horumarka la gaaray dalal badan oo Afrika oo geeska iyo kuwa kale ma ay gaarin wali heer ay ma garanaysaa nidaamkaas dadku ku qabsadaan doorasho horta aad aan ugu faraxsanahay Somaliland waxay noqotay wax lagu daydo wanaagsan oo maxay ahayd Afrika maanta wax maleynaya marka la sheego Afrika maanta wadankaas wali aan haysanin itraafka haysanin iyo meesha marayso aad ba u qurux badan tahay doorasho wanaagsan baa hadda socoto ilaa waxaan ka rajaynaynaa si nabad ah oo qurux badan inay ku dhacdo aragtidayda ku aadan doorashada ka socota maanta Somaliland runtii wax aad loogu farxo oo wax ku dayasho mudan oo tilmaamaysa bisayl iyo horumar iyo Allahumma salli ala Muhammad maxaan ku dhahdaayay qaangaadhnimo dhinaca dimuqraadiyadda oo Somaliland mar kale ay cagta saartay oo wax ididiilo iyo farxad mudan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo oo ah wax lagu daydo iyo tusaale wanaagsan Abbas Hussein Muuse telefishinka caalamiga ah ee Saab magaalada Muqdisho